baran waxa ay ku taalaa bartamaha gobolka Sanaag dhinaca galbeed waxa kaga toosan magaalada Ceergaabo oo u jirta 120 kiiloomitir dhinaca koonfureedna waxa kaga aadan magaalada Dhahar oo u jirta 125 kiiloomitir dhinaca waqooyina magaalada Laasqoray iyo waliba Buuraleyda Calmado oo u jira 110 kiiloomitir dhinaca barina magaalada Ceeldofaar oo u jirta 90 kiiloomitir taariikh ahaanna waxa la aasaasay sanadku markuu ahaa 1972 dabayaaqadeedii ka gadaal markii laga soo guuray Xubeera oo iyadoo ahayd xilligaas meeshii ay degnaayeen bulshadaasi isla xilligaas sababta looga soo guurayna Xubeera ay ahayd iyadoo 2 sanadood oo isku xiga xilliyadii sanadihii 1972 ay ka dhaceen duufaano baabi'iyay dad iyo dunyaba bilaa rafle guuleed oo ahaa barasaabkii gobolka waqooyi bari isla markaasna wata ciidamo daraawiisha oo ka socda dawladii dhexe ee Soomaaliya ayaa xog soo raray bulshadaasi isla xilligaasna keenay magaalada Baran oo asaaskeedu ahaa 1972 ayaa sanad yar kadib kala wareegtay deegaanimadii Laasqoray oo xilligaas ahayd degmo isla xilligaas magaalada waxaa ka bilowday dhismayaal degdeg oo isugu jira xarumihii dawladda iyo kuwii bulshada sidii gurigii degmada saldhiggii ciidanka nabadgelyada isbitaalka guud dugsiyada waxbarashada ee hoose dhexe iyo waliba sare iyo arrimaha bulshada magaaladu waxay leedahay dhul aad u ballaaran oo hodan ku ah beeraha ganacsiga iyo wixii la mid ah dadka ku nool magaalada Baran waxa ay lagu qiyaasaa dad tiradoodu dhan tahay 25,000 oo qof Xaaji Aadan Cabdi Cabdalle oo ah shakhsigii ugu horeeyay ee ka taagan magaalada Baran daartii ugu horeysay ayaan telefishinka caalamiga ee ATN u weydiiyay xilligii uu dhigay sayskii ugu horeeyay iyo waxyaalaha ku kalifay inuu ka dhiso daartii u horeysay magaalada tani Baran waa kan Xaaji Aadan oo ka jawaabaya su'aalahani guriga waxaan barawnay asaaskiisa 3 barawnay dhagax baan ka jabsanay afsi waa nimi wadiga walaalayaal joognay dabadeedna waa ka tagay 67 waan dhisnay gurigii u horeeyay oo asaasnay markay ahayd dayr wajinihi waan ka tagnay misnaa isagoo dhisan waxaan soo noqday oo furay 68 bishii afraad waa gartay 18 baan dukaanka u horeeyay ka furay waxay ugu kalifay Laasqoray joognay muddo badan baan shaqan ka ahay daaraan ku ahay wadeed waxaan furuc baan jeclaysanay halkaas furuc baan ka dhignay 3 bilood xagaaga inta ku leeyahay waxaan halka ka dhignay guriga ka dhisnay halka dabeedna dukaanka halkaas aan ka furay furuc buu ahaa Laasqoray waa degan gurigani waa gurigii ugu horeeyay oo magaalada laga dhiso oo aad u duqoobay taariikh ahaan la eeg magaalada Baran isla markaasna haatan ku jira bartanka magaalada Baran ayna geesaha ka xigaan guriga kale oo ahaan ku dhow sidoo kale Baran waxa la oran jiray ceel halkaas ku yaalay ka hor intaan halka deegaan ahaan loo degin isla markaas ceelka oo lahaa biyo aad u tiro badan xaqamna tiri karay dadyowga area ceelka ku dhawaa iyo kuwii ka fogaaba inta badan dadku ay oran jireen biyo la hubo waa Baran isla markaasna waxa ceelka dhinacyadiisa ku yaalo 2 qalcadood oo aad iyo aad u dhaadheer ayna kala dhiseen ciidamadii ay kala hogaaminayeen Suldaan Maxamuud Cali Shire iyo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan sidoo kale Baran waxa ay leedahay 10 dugsi 4 ah noocyada isugu jira hoose dhexe iyo waliba 6 dugsi oo sare isla markaasna waxa dugsiyada waxbarasho ee ku yaal sanad walba dhameeya arday tiradoodu dhan tahay 200 arday kuwaas oo jaamacada u aada jaamacadaha ku yaala dalka iyo waliba jaamacadaha ku yaala dibadda magaalada waxa kale oo aad ugu sii saayidaya goobaha waxbarasho oo noqday kuwa si aad ugu xawli badanaya magaalada iyadoo arday gaaraysa 350 ay u dareeraan kolleejyada ka madax banaan dugsiyada ku yaala magaalada Baran waxa maalinta ka sii dambeysay ku sii saayidaya dhismayaal kala duwan oo la soo jeedasho iyo bilic aad iyo aad u wacan isla markaasna waxay leedahay bilic ku soo jeedata xilliyada ay roobabku ka da'aan iyo waliba bilicdeeda dhisme xilligan oo kale magaaladu waa mid aad u qabow waxaana uu dhaxayaa temperature-keedu 18 ilaa 20 degrees Celsius Ibrahim Bilaadi ETN TV Baran